السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفواد قري يقري ميديا كسر هذا موضوع كلا إيه مالين كلا موضوع إن ما أنت وحربنا إن نبل سرت كدم بيس أما وضدا الرعان dadka noloshan guusha ka gaaray waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa Jeff Bezos milkiilaha ahna aasaasaha shirkadda online-ka wax ku iibisa Amazon waxaan wada ognahay saaxiibeel dhamaanteen inaan wada soconno sidii aan markaa u gaari lahayn guul nololeed laakiin waxaan isweydiinaa mar walbaba maxaan u xaqiijin lahayn ahdaaf yar yar oo kooban halka dunidan ay guula ka gaareen dad lahaa fikir iyo ahdaaf waaweyn guushu waxaan wada ognahay inay leedahay ama ay u baahan tahay sabar badan iyo mabaadi' wada la raaco iyo meelaad bidhaansato si aad u gaarto guushaas aad ku haminayso dadka ugu haboon aan isleeyahay in maaragtay aad bidhaansato waxaa kamid ah Jeff Bezos milkiilaha ahna aasaasaha shirkadda Amazon marka inta laga soo tagana ninka dunidan hadda aynu ku noolnahay ugu taajirsan markay timaado dhinaca lacagta ku soo dhawaada mowduuceena maanta isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal waxaan eegi doonaa bal inta aan garanayn Jeff Bezos cida uu yahay Jeff Bezos waa qof kale fikradda mashruuca koobaad ee caalamka dhanka ganacsiga internetka waxa u furan suuq markaa aad u weyn oo lagu magacaabo suuqa Amazon kaasoo kacdoon ka dhaliyay hantida dunida oo dhanka suuqgeynta ah waxa u suurta gashay in uu markaa dusha surto taashka qofka ugu taajirsan adduunka oo markaa uu kala wareegay Bill Gates oo hore u hayn jiray si lamida Elon Musk oo markaa dhawaan qabsaday booskaas ayuu hadda dib uga la baxay oo booski koobaad ayuu hadda ku soo noqday markiisa hore Jeff Bezos waxa uu ahaa programmer ama qof programmada sameeya waxa uu ka shaqeyn jiray maqaayada ama company-ga weyn ee cuntooyinka ku caan baxay McDonald's kadib waxa uu ka mid noqday shirkad markaa maalgashi sameysay markii uu arkay in tirakoobiyada markaa ay sii kordhayaan isla markaana ay soo tarayaan waxa uu tilmaamsaday in dadku ay si aad ah u isticmaalaan internetka isla markaana ay tahay in uu sida saxda ah uga faa'iideysto ganacsina uu markaa ka bilaabo Jeff Bezos markaas waxa uu ahaa qof hal abuur leh isla markaana shaqadii McDonald's uu ka shaqeynayay aad looga jeclaa waxa uu go'aansaday in uu furo ganacsi dhinaca online-ka ah oo uu markaa furay shirkadda Amazon shaqadii markaa uu ka hayay dhinaca McDonald's-na waa uu iska casilay isagoo aan garanayn waxa uu kala kulmi doono markaa ganacsigaas uu furay company-ga Amazon maanta Amazon waa company-ga ugu ballaaran maaragtay online-ka markay timaado wax looga iibsado waana suuqa ugu weyn dhinaca maaragtay internetka hore waxa uu ku bilaabay inuu ku iibiyo ama uu maaragtay markeedii hore qaban jirtay inay iibiso buugaagta oo qura hadda waxa isticmaashaa robotyo badeecooyinka markaa jaldiga u sameeya diyaarada drones oo markaa dalabaadka dadka gaarsiiya hadda waxa lagu soo kordhiyay shirkadda afkaar cusub oo muhiim u ah isla markaana la jaan qaadaysa tiknoolajiyada sanadkan 2021 haddaba su'aasha isweydiinta mudan maaragtay mowduuceennana uu ku qotomo waxa weeye halkee ayuu u maray Jeff Bezos guusha uu markaa isagu gaaray erayadan ayuu ku soo koobay Jeff Bezos laftigiisa mar su'aashaas la weydiiyay guushu waxay u baahan tahay khubaro hibo leh dad bilow ah iyo qorsheynta waqti dheer oo markaa keena ama natiijada ay ka imaan doonto ay tahay guul laga gaaro wixii loo dhabar adeegay isla markaana waqtiga dheer la qorsheeyay Jeff Bezos saddexda mabda ee markaa guushiisa uu ku dhisay waxay kala yihiin ka koobaad ha kugu hareereysnaadaan dad munaasabka dadka ugu munaasabsan ee markaa ay tahay in ay hareerahaaga joogaan haddii aad doonayso in aad guulo waaweyn gaarto oo aad hiigsato waxaad u baahan tahay koox heer sare ah Bezos kooxda uu haysto waxa uu ku tilmaamay khubaro markaa hibo leh waxaase isweydiinta leh qof kasta oo khabiira hibo ma leeyahay sanooyin badan oo cilmi baaris la sameeyay waxa la ogaaday in arrintu aanay qusayn qofka khibradda uu leeyahay laakiin ay lagama maarmaan tahay in uu garanayo waxa looga baahan yahay ee muhiimka ah si uu guul u gaaro waxaas shaqada ama waxa goonida ee markaa uu gacanta ku hayo lambarka labaad Jeff Bezos uu markaa mabaadi'diisa ku dhisay isla markaana uu sheego inay tahay sirta ka dambaysa guushiisa waxa weeye inuu qofku yeesho caqli oo hamuun qaba in uu wax kororsado isla markaana mar walba diyaar u ah
in wixii cusub uu la jaan qaado. halkan waxaa la doonayaa in laga fogaado dadka isku haysta in ay wax walba yaqaanaan. waxaa loo baahan yahay dad ay wax ka maqan yihiin oo leh caqli qof bilow ah, wax walbana in ay bartaan diyaar u ah, isla markaana diyaar u ah tiknolojiyadii iyo dhinac walba ay markaa u dhaqaaqdo in ay raacaan si ay markaa wax dunidan ku cusub ay u keenaan, taasna ay u noqoto wadada kaliya ay markaa ama waxa kaliya ay ku gaari karaan guusha ay u baahan yihiin. qodobka saddexaad ee mabaadi'da Jeff Bezos uu ku dhisay noloshiisa markaana uu ku saleeyay inay tahay waxa uu guusha ku gaaray waxa weeye in Roma wuxuu isticmaalay maamaadii ahayd Roma maalin kaliya laguma dhisin, in dadka aad ka dhaadhiciso fikrad cusub ama mushkiladahooda asaasiga ah aad u xalliso wax sahlan ma ahan. waxaa loo baahan yahay istiraatiijiyad waqti dheer ah. sidaa daraadeed Jeff Bezos waxa uu yiraahdaa hadafkaaga waqtiga dheer marnaba ha u hurin ahdaaf waqti koobana oo laga yaabo in maaragtay aad muddo kooban kadib aad ka tallaabsato. si kastaba guushu fadhi kuma timaado, xagla laaban xoolo kuma yimaadaan bay Soomaalidu dhihi jirtay. waxaa muhiim ah in aad markaa xoogga saarto shayga aad doonayso inaad markaa ka miro dhaliso, waqti iyo xoogna aad ku bixiso wixii markaa aad heli karto si guusha aad u baahan tahay aad uga miro dhaliso, taas oo ah waxa ku anfacaya oo markaa noloshaadana maaragtay wax badan ka tari doona. saaxiibayaal mawduuceeni maanta waa naga intaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii muuqaalkan uu ku cajab geliyo isla markaana aad u aragtay inaad wax ka faa'iiday inaad like tiraado isla markaana aad share garayso si asxaabtaada ay u gaarto oo maaragtay ay dad badan maaragtay u helaan isla markaana ay uga faa'iideystaan si lamida sidaad maaragtay uga heshay. sidoo kale haddii meesha aad naga daawanaysa ay tahay kanaalkeena YouTube-ka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tiraado si muuqaalada kuwan ka dambeeya mawduucyada maalinta aan sida joogtada usoo gelinayna ay kuu soo gaaraan, isla markaana gambaleelka taabo si qofka ugu horeeya aad u noqoto. sidoo kale haddii meesha aad naga daawanaysa ay tahay Facebook page-keena waxaan sidoo kale kaa codsanaynaa inaad follow tiraado isla markaana aad like garayso page-ka si lamida ay u noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaaladan hela. waan kaaga mahadcelinaynaa mar walba inaad nagu xiran tahay, sharaf iyo karaamayna noo tahay inaad na daawanayso. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. aniga iyo saaxiibka Cidruus oo muuqaalkan quruxda badan inoo duubay waxaan idin leenahay nabadgelyo fi amaan illah.